أصحابت كسر هذا رنشاك ميديا نتورك أصحابي وحاسوا بحاجة قطر دقنينو أو أي صدر يسد دولة إسرائيل وندر يسد دولة تركيا إسرائيل واحد تركي هو أديسي الشيء سدا أو لقى للدولة الصومالية إني قطر كويهين جريتانكا صلية إسرائيل قرشين يسو إني كرستو بربرة هالكاس أو إسرائيل حرون استراتيجية إسرائيل waxay ku eedeynayaan Turkiga in Turkiga oo qorsheenayo warshiq inuu ka dhiso xarun laga gana gantaalada macnaha satellite-ka iyo heshiisyo qarsoon oo dawladda Soomaaliya xataa aysan ogeyn baarlamaankana la marsiiyay laakiin shakhsiyaad Soomaali ay og yihiin heshiisyadaas waxa ku lamaanan say sheegeen Israa'iil in halkaas warshiq laga dhisayo xarumo military oo lagu sameeyo gantaalada ridada dheer ilaa iyo متقنا waxa ay dhahan long range missiles oo 2 kilometer jari karo marka waxay leeyihiin waa xarumo muxuu ahay laga tuuro gantaalada ujeedaduna ay tahay multi purpose in lagu sameeyo ujeedooyin badan ayaa halkaas laga leeyahay ay leeyihiin inay soo saarto xataa waxyaabahan military hardware-ka ama qalabka military iyo gantaaladaas marka waxaa jira wargeys ka soo baxo dalka Faransiiska ee la yiraahdo Le Monde kaas ayaa wuxuu soo sheegay ama soo xigtay digniinaha Israa'iil isagoo sheegaya marka in dawladda Soomaaliya ay la gashay muxuu ahaa heshiisyo dhanka difaaca kuwa kheyraadka sida shidaalka kalluumaysiga iyo macdanta dawladda Turkiga waxa marka la leeyahay heshiisyada Turkiga lala galay ee baarlamaanka Soomaaliya aan la marsiinin dadka Soomaaliyeedna aan loo soo bandhigin oo ilaa hadda aan la ogeyn waxa dhexdooda ku jiro heshiisyadaas oo qayb ka ah in warshiq oo Turki ka dhisto xarun laga gamo satellite-ka waxa kale oo liido marka xaruntaas dadka Soomaaliyeed waa la soo bandhigay iyo siyaasiyiinta Soomaalida waxa liido waxay ku kacay $1 billion ayaa waxa ku kacayso xaruntaas maalgelinteeda iyo in la dhiso marka waxa liido heshiiskaas ama waxa ku qarsan wuxuu ahaa dual intent laba heshiis marka waxa ku qarsanaa leeyahay heshiis kale oo multi purpose ah oo ujeedooyin kala duwan leh waxa kamid ah marka in dhanka kaleento laga sameeyo warshad soo saarto gantaalada ridada dheer ee long range missiles kala dhaho oo 2 kilometer square jari karo marka iyo xarumo laga dhiso laga soo saaro military hardware waxyaabaha equipment-ga ama qalabka military-ga oo isticmaalo marka ujeedadaas Turkiga waxay Israa'iil ku sheegtay in shacabka Soomaaliyeed ay ku qiyaantay laakiin siyaasiyiin danley ay dhex marsiisteen baarlamaanka Soomaaliya aan la marsiin oo laga qariyay marka saadirteed qatar ay u aragtaa sababta dhanka kale Israa'iil ayadana ay doonayso inay ka dhisato saldhig military muxuu ahay berbera inay ka dhisato oo halkaas ayada danaheeda ay ka maamulato marka hadda Soomaaliya waxay noqotay xarun ay ku diriraan dawladaha Israa'iil iyo Turkiga dagaalkii bariga dhexe ama Middle East waxa loo soo raray Soomaaliya loo soo raray maxaa yeelay dawladahan waxay hoosta ku sii wataan dawlado kale Turkiga waxa wataa Imaaraat oo ku diriraya maanta warshiq iyo Muqdisho dhanka kale inta berbera waxa jooga Israa'iil iyo Puntland oo ayadana Imaaraat ay joogaan marka afar dawladood isku haysta maanta Soomaaliya waa Imaaraat waa Masaarida waa Turkiga iyo waa Iiraan mataqaana Israa'iil afartaas dawladood ayaa isku haysato Soomaaliya oo runtii la rajaynayo sida hadda muxuu ahaa ama la filayo 100% inay ku dul dagaalamaan maxaa yeelay waxaan ogeyn bariga dhexe markii ay isdariirayeen colaadii 40 maalin socotay oo ay dhaxaysay Israa'iil iyo Iiraan kuma ekeen Israa'iil iyo Iiraan xarumaha ay saldhigyada military ku leeyihiin duqeymaha waa loo geysanayay Mareykanka oo dhinac ka ahay waad ogeedeen in saldhigyadii bariga dhexe ee Mareykanka kii Al-Ubayd ee mataqan Qatar ku yaalay kii Kuwait ku yaalay kii Imaaraadka kii Saudi Arabia waxa soo in la duqeeyo Iiraan ay duqeysay marka waxa hadda la filan karo waxay tahay markii dawladahan ay isku dhacaan oo Turkiga iyo Israa'iil ay isdiriraan in la weerari karo marka xarumaha ay ku leeyihiin Soomaaliya haday noqon lahayd kuwa military haday noqon lahayd kuwa ama shirkadahooda sahanka shidaalka iyo saliidda waxa soo dhanka kalena berberasaas oo kale ayadana la weerari karo marka waxay muddaa colaadii bariga dhexe ka socotay in hadda Soomaaliya ay lagu soo gashay waxaana keenay waxay tahay saldhigyada military ee Israa'iil ka qorsheynaysa mataqaana berbera iyo heshiisyada qarsoon ee la galay Turkiga oo laga qariyay baarlamaanka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliya oo la ogeyn waxa ku jiro laakiin hadda ay soo baxayaan in laga shalaynayo
heshiisyadaas maxaa yeelay maadaama ay ahaayeen kuwa qarsoodi ah khataraha ka imaanaya iyo consequence ay keenayaan marka hore lama filayn laakiin hadda waa ay soo baxayaan maxaa yeelay wargeyska Le Monde waxa uu soo sheegay waxay tahay in la filan karo in Soomaaliya dhan kasta laga duqeeyo in la filan karo in Muqdisho la duqeeyo in Berberana la duqeeyo oo Turkiga iyo Israa'iil ay ku diriraan waxaa kaloo soo baxaysa ogtihiin in ay tiri Puntland ay soo saartay war saxaafada ay tiri anaga heshiisyada lala galay Turkiga ee shidaalka iyo macdanta iyo difaaca qayb ka mid ah anaga mana ku jirno raalina ka manihin marka dhanka kale inta waxa ogtihiin masaarida inay ka wado Soomaaliya dhexdeeda qaasatan magaalada Muqdisho galaangal dhanka ma taqaanaa howlgallo military iyo inay keenayso qalab military oo dawladda Soomaaliya ay ku taageerayso Israa'iilna ay wadato qorshaheeda oo saldhigadeeda military kuwa sahan iyo qalabkeeda sirdoon ay keensanayso Somaliland si ay halkaas base uga samaysato berbera wala socoto waxa ka socdo ma aragtay muxuu ahay in gobolka dhan marka halkaas waxa kaaga muuqato runtii khatar weyn inay soo socoto oo u dhaxayso dawladaha marka Soomaaliya dawladahaas maanta kala qaybsaday waa Turkiga iyo Israa'iil Imaaraad iyo Masaari ayaan maanta dhexda ugu jirnaa culaadoodii saacad kastana ay qarxi karto waxa la isku haystaa waxay tahay strategic location iyo khayraad ayaa la isku haystaa kaliya intaas waa wax kale ma ahan maxaa yeelay hadda wali waxta Israa'iil waxay sheegay gantaaladan ay leedahay qatar ayaa ma aragtay muxuu ahay dhanka nooga soo socota Turkiga maadaama ay warshay qadisanayaan xarun laga sameeyo gantaalada lagu sameeyo oo ilaa iyo 2000 oo kilomitir ay jari karaan marka 2000 oo kilomitir gantaalada jari karo ma gaari karaan Tel Aviv ma gaari karaan iyo Jerusalem laakiin waxa ay Israa'iil sheegay waxay tahay saldhigyada ay ka samaysanayso berbera inay gantaaladaas ku dhici karaan oo ay toos u bartilmaamaysan karaan ayada dhankeedana ay diyaar garowday saasoo kalena ay ka jawaabi doonto warshiiq iyo magaalada Muqdisho marka targetka intee waaye targetka waxa waaye waa dekada magaalada Muqdisho iyo garoonka Aadan Cabde waxa targetka uu yahay berbera oo xarumaha saldhiga mataqaana ay ka qorsheynayso Israa'iil iyo gudaha magaalada Hargeysa waxay noqon karaan marka targetyada runtii dawladahaas ay iska duqeeyaan ama ay ma aragtay muxuu ahay ku diriraan marka saameyn ayaa ka dhalanaysa halkaas dadka Soomaaliya marka waxa la rabaa inay baraarugaan dadka siyaasiyiinta arintaas xataa dawladda Soomaaliya ku baraarugsan arintaas waxa la rabaa in runtii feejignaan dheer la muujiyo oo arrimahan soo kordhay il gaar ah lagu hayo xiisadan u dhaxayso Turkiga iyo Israa'iil oo runtii aad moodo in dagaalkii bariga dhexe loo soo raray Soomaaliya maxaa yeelay hadii Turkiga iyo Israa'iil isku diraan magaalada Muqdisho waxa la filan karo waxay tahay Xuutiyiinta inay meesha soo galaan Xisbullah inay soo gasho Iran inay soo gasho Mareykan inuu soo galo Imaaraad hore ugu jiray Masaari waa ku jirtay muxuu ahay dawladihii gobolka oo dhan ay soo galaan Ethiopia Kenya muxuu ahay Djibouti Faransiiska xataa uu soo galo dawladihii Yurubiyaanka xataa ay soo galaan Talyaaniga Ingiriiska kulli la soo wada galo marka Uganda ay soo gasho marka waxa runtii ay noqonaysaa Soomaaliya xarun dhexe oo martigeliso dagaaladan la yiraahdo proxy war ama wakiil dagaaleedka oo base u ah ama saldhig u ah khayraad iyo location ama strategic location lagu dagaalo khayraadka Soomaaliya hawada Soomaaliya muxuu ahay locationka aan ku oolno intaas oo dhan inay noqdaan meel runtii lagu dagaalo oo dawladahaas ay u dagaalaan annagana aan noqono labadii cooskii ay ku dirireen labadii maroodi ay nagu tuntaan oo ku baaba'ana marka intaas taas dhicin waxa la rabaa in dadka analystiyaasha dadka mataqaana siyaasiyiinta iyo dadka diblomaasiyiinta in arintaas loo istaago il gaar ah lagu hayo runtii la daba galo arrimahaas dawladahan ay ka dhex wadaan Soomaaliyana il gaar ah lagu hayo waa Turkiga iyo Israa'iil Imaaraadka iyo Masaarida ayaga la sii kala safteen maxaa yeelay talaabooyin ma qaadi karaan hadii labadan la xakameeyo dhaqaaqadooda saldhigadooda iyo howlgallada ay wadaan sida Turkiga arinta oo wado oo gantaalada oo ka dhex sameysanayo Soomaaliya sida Israa'iil saldhigada ay sameysanayso waxaas oo hadii il gaar ah lagu hayo oo runtii lala socdo si guud taas waxay keenay marka in la xakameeyo karo laakiin hadda ma muuqato in la xakameeyo karo maxaa yeelay baarlamaanna ma jirin muxuu ahay arintaas il gaar ah ku hayo waa la dhex marsiistay heshiisyadii Turkiga ilaa hadda cid og ma lahan waa taas hadda warshiiq barnaamijyadas ay ka socdaan oo ay Le Monde soo sheegayso wargeyska Faransiiska Israa'iilna ay sheegtay dhanka kalena waadkaasa Israa'iil ay ayadana saldhigadeeda sameysanayso oo ay keensanayso qalab military marka xaaladda waxay u muuqataa hadda digniino ay soo baxayaan ama early warning systems la soo sheegayo
digniino hore oo hordhac ah ay soo dirayaan maaragtay maxaa laba dhinac ay isku dirayaan waxa la filan karo waxay tahay marka in conflictgaas hadda uu isu bedelo gacan ka hadal hadda waxa waaye wali digniinaha la isku diraa iyo khataro ayaa la muujinaa waa wada hadal hadda qoraallo la soo dhacayo iyo khataro la muujinaa iyo far isku fiiq waaye laakiin waxa imaan karo toos in la isu farasaaro haddii mar la isfarasaarana waa adagtaha Soomaaliya marka inay ka badbaado arrintaas maxaa yeelay Soomaaliya ma laha nidaam difaaceed oo hawada air defense Soomaaliya ma aha mid haysto qalab oo isaga difaaco waxyaabaha gantaalada la iska dhaafsan karo ma aha mid difaaci karo diyaaradaha civilianka ee hawada marayo ama kuwa chartered flight-ka ma aha mid ilaalin kara badqabka dekedaha Soomaaliya iyo garoomada Soomaaliya marka waxaas oo dhan waxay keeni karaan in dalkan uu galo khatar oo ay adkaato inuu ka soo kabto marka box war oo faraha looga gubto oo Soomaaliya ay runtii halkaas ku dunto ay ku baaba'do ayaa dhici karto haddaan hadda loo istaagin marka intaas aniga kusoo gabagabeynaa muuqaalka aragtidiina qaybta hoose commentiga igula soo wadaaga inta aan isku arkayna muuqaalkan muuqaalku waxaan idin rajeynayaa khayr caafimaad fiidiyoga asxaabtiin la sii wadaaga share gareeya like gareeya channelkana subscribe gareeya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي